بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan kasoo gudbinaynaa xadiidkeenii labaad ee aan ugu talagalnay bisha ramadaanka. can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ataakum ramadaanu shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaamah tuftaxu fiihi abwaabu alsamaa wa tuglaqu fiihi abwaabu aljaxiim وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي. حديث كاني وحديث آد معاني وين أحنبارسن علوم فربضن وشرحات أباهن حنبارسن annagu laakiin aan si kooban uga faa-iideysan doonno insha allahu tacaala. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan markii ay soo gasho asxaabtiisa wuu u bishaaray jiray, bishaaro weyn ayuu u bishaaray jiray. bisha ramadaan soo gelitaankeeda ayuu ugu bishaaray jiray. markaasuu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ataakum ramadaan shahrun mubaarak, waxaa idiin yimid, waxaa idiin dhashay bishii ramadaan. bishaasoo ah bil barakaysan, bishaasoo ah bil khayr badan, bishaasoo ah bil farxad ah, bishaasoo muuminku ka faa-iideysanayo, bishaasoo ruuxu ilaahay la kulankiisa u diyaar garoobayo, bishaasoo qofku taskiyada naftiisa u diyaar garoobayo, bishaasoo qofku qalbigiisa dahiridiisa u diyaar garoobayo, bishaasoo raxmadi ay shubmayso, bishaasoo qofkii ilaahay waafajiyahay uu liibaanay, bishaas oo aan bil la heli kara aan ahayn, bishaasoo salafkii 6 bilood ay ilaahay baryi jireen inuu ilaahay gaarsiiyo, 6 biloodna ay ilaahay baryi jireen in soonkeeda uu ka aqbalo. bishaas weyn ayaa idiin timid. ataakum ramadaanu shahrun mubaarak, bishii ramadaan ayaa idiin dhalatay oo idiin timid, bishaasoo bil ah bil ilaahay u barakeeyey. farada allaahu calaykum siyaamah, bishaas ilaahay wuu waajib yeelay, soonkeeda ayuu idinku waajib yeelay. inaad soontaan ayuu ilaahay idinku waajib yeelay. waajibyaalkaas bishaa soonkeeda la isku waajib yeelanaa ummadeennan kaliya kuma gooni ahan, soonka ummadihii horena waa lagu waajib yeelay, inkastoo aan la caddayn qaabka loogu waajib yeelay iyo bisha uu ahaa, haddana soonku annaga kaliya naguma waajib ahan. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. war dadka alla rumeeyow, muuminiintow, waxaa la idinku waajib yeelay soon sidii dadkii hore ummadii inka horeeyey loogu waajib yeelay. bishaan marka wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa bil ilaahay uu idinku waajib yeelay soonkeeda. waajib yeelkaas ilaahay soonkeeda uu nagu waajib yeelayo ma ahan in ilaahay dan ugu jirto, ma ahan ilaahay inuu faa-iide naga doonayo. annaga ayaa dan inoogu jirtaa, annaga ayaa nafteenna dahirayna, annaga ayaa ka faa-iideysanayna. waa noo imaan doontaa soonka ajarkiisa wax koobi kara oo og oo aan ilaahay ahayn ma jirto. soonku marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha nafta lagu taskiyeeyo, waxyaalaha nafta lagu dahiro, waxyaalaha dembiga lagu mayro, waxyaalaha jannadii loogu diyaar garoobo. marka ilaahay baa idinku farad yeelay uu leeyahy. haddana dadkaas shaqada loo diray oo la yidhi shaqeeya, oo la yidhi sooma, cuntadiina ka sooma, shahwaadkiina ka sooma, waxaad jeclaydeen ka sooma, wax idii xalaashaa ka sooma, abaalmar weyn ayaa loo muujinayaa. markaasaa ilaahay uu albaabada jannada furo. tuftaxu fiihi abwaabu samaa u nabigu leh alayhi salaatu wasalaam, samada albaabadeeda oo macnaha jannadii iyo aa la furayaa. wa tuglaqu fiihi abwaabu ljaxiim, albaabada naartana
waa la xirayaa. ilaahay macnaha addoommahayga bisha ramadaan diyaar garoobayo in albaabadii naarta ku furnaadaan xaquma leh, albaabada jannadu inay ka xiraadaanna xaquma leh addoommahayga mukhlisiinta ah, addoommahayga saadiqiinta ah, addoommahayga cibaaduraxmaanka ah, addoommahayga bishan ku farxay, addoommahayga bishan soo dhaweeyey. jannada aloo fur, albaabada naartana ha laga xiro. waxay ku farxaan kaliya ha arkaan, waxay ka naxayeysa maqli. haddana wixii waswaasi lahaa, wixii dhibi lahaa, wixii yani cibaadada ka tashuushi lahaa waa laga qabto. watuqallu fiihi maradatu shayaatiin, waxaa la xirayaa shaydaanka kuwiisii madaxa adkaa, shaydaankii fasaadka waday ayaa la xirayaa oo nabigu leh calayhi salaatu wasalaam. marka meeshaas waxa weye macnaheedu qofkii hadda ramadaan u diyaar garoobay oo ilaahay qaabilayey oo cibaadadii iyo daacadii doonayay, shaydaankii dhibaya waa laga xirayaa. laakiin kii ramadaan aanba usoo diyaar garoobin, kii aanba isu soo diyaarin, kii aanba farxad kusoo gaarin, kii asagoo halmaansan ramadaan ku dul dhashay, kii asagoo baraka daroogaysan ramadaan ku dul dhashay, kii asagoo qaflo ku jira ramadaan ku dul dhashay, kaas hadda shaydaankiiba kamaba zuulinba. allahu akbar. markaasuu wixiisii kusii baadiyeynayaa. qofka muuminka inuu isdiyaariyo oo ramadaan farxad ku gaara ayaa loo baahan yahay. bishaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fiihi laylatun khayru min alfi shahr. addoommahaygu cumrigoodu waa yaryihiin. wuxuu leeyahy ilaahay addoommahayga cumrigoodu waa yaryihiin, waqti dheer ma haystaan. ummadihii hore sanado badanay noolaa jireen. waxaan siinayaa hal habeen oo qofkii ilaahay waafajiyo, qofkii dadaalaahay ummadihii hore oo dhan uu dhaafayo. markaasaa ilaahay wuxuu siiyey habeen 1000 bilood ka khayr badan. yacni cibaadada habeenkaas la sameeyo, laylatulqadriga habeenka ah, cibaadada la sameeyo waxay ka khayr badan tahay haddii alla kaa aqbalo, waxay ka ajar badan tahay 1000 bilood cibaado noocaas oo aada sameydoo laga aqbalay. mathalan ba salaada habeenkaa tukatay, haddii ilaahay kaa aqbalo 1000 bilood salaado aada tukanaysa, 1000 bilood oon laylatulqadri ku jirin, salaadihii aada tukanaysoo laga aqbalay halkan salaadaa ka khayr badan oo ka yacni ajarkeedu dheeriyay, macnaha 100kiiba intaas ay dheerta. allahu akbar. ilaahay u fiirso martiqaadku noo fidiyey, ilaahay raxmaddu noo ballaariyey, ilaahay siduu noogu naxariistay. annaga ayaa ka dib dhacayna, annaga ayaa ka daahayna, ee mahana ilaahay waa noo goglay, raxmaddiisa waa noo fidiyey, albaabadii khayrku noo furay, albaabadii shartu naga xiray. aan ka faa'iidaysan, war aan hore u gaarno, war ramadaanka aan hore u gaarno, war aan diyaar garowno, war qalbigeenna nadiifino, war aan isjeclaano, war cibaadada aan badino. nabigu muxuu yihi habeenkaas qofkii la dhaafiyo, man xurima khayraha faqad xurim. qofkii habeenkaas khayrkeeda la seejiyo, qofkii la agmarsiiyo, qofkii habeenkaas aan ka faa'iidaysan waa la hoojiyey. hadda habeenkaa inaad wax aragtid shardi maahan, in calaamada aragtid shardi maahan, in lagu tuso shardi maahan. haddaad daacaad ku gudatid habeenadii ramadaan oo dhan, ilaahay cibaadadiisa a ku martid adoon waxaba aragaa, ilaahay camalkaaga aqbalaya. habeenkii ad waxaa lagaa rabaa inaad daaco ku gudatid. laakiin qofkii ka waran ramadaankii habeenadii khayr ka badnaa, wuxuu ku jiraa darooguu ku jiraaba, macaasiyuu ku jiraa, qamaaruu ku jiraa, kubaduu iska daawanayaa, habeenkii oo dhan filan xunu daawanayaa, waxyaalaha xuxumuu ku mashquulsan yahay, fadhi ku diriruu ku jiraa, cay ayuu ku jiraa, qabyaalad ayuu ku jiraa, dil ayuu u diyaar garoobayaa, ummad inuu laayo u diyaar garoobayaa, ummad inuu dhibo u diyaar garoobayaa, ummad inuu xantu u diyaar garoobayaa, ummad ayuu dhacayaa, baaciyuu ku khayaanay. bishii ramadaanaadba aada ummadda ilaahay khalqiga ilaahay ku maqan tahay. qofkaas ka waran qofkaas khayrkan wax kuma leh, waa la hoojiyey. barwaaqadan wax kuma leh, albaabada jannadoo furan wax kuma leh. ilaahay ha naga dhigo kuwii ramadaan ka dahirooba, ilaahay ha naga dhigo kuwii habeenkaas haleela, ilaahay ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta, ilaahay ha naga dhigo ramadaankana kuwii laga aqbalo, ramadaanada kalena barwaaqo iyo bashbash iyo daaco iyo khayr iyo wanaag iyo isjacayl iyo maxabo kuwii ku gaara ilaahay naga dhigo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa soonka inuu naga aqbalo,
ilaahay waxaan weydiisanaynaa salaada inuu naga aqbalo ilaahay waxaan weydiisanaynaa soonkan inuu na dahiro oo aan calaamaadkii qabuulka dareenno qofku calaamaadka qabuulka waxa weeye wuxuu ku dareemaa ramadaanka markii uu u dhashay iyo markii uu dhammaaday haddii naftiisa isbeddel raxmad taqwo towbo qalbi jilaac haddii uu dareemo ramadaankiisa waa la aqbal laakiin haddii uusan waxba isbedelin oo uu qallafsan yahay oo uu sidiisa iyo ramadaankiisa lama aqbalin ilaaha naga dhiga kuwa ka faa'iidaysta oo aan iscafino aan isjeclaano aan khayrka isku kaalmeyno masaakiinta aan caawino agoomaha aan caawino aan iscafino wabillahi towfiiq xadiidkeena intaas ayaan maanta ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu